ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dadka Soomaaliyeed ee muddada dheer sugaya sharciga deganaanshaha rasmiga ah laakiin aan weli qaadan iyo guud ahaan jaalida Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Bergen ee dalka Norway ee aad adiga gudoomiyaha u tahay waa maasan tahay baaq waxa uu diri lahaa baaq farxadeed in qorshooyinkooda ay wateen waxa ognahay rago xanuunada oo ku reebtay dadka iskoolaadkooda ka hareen inay iskoolaadkooda toos ugu laabtaan maxay waxbarashadooda iyo noloshoodana toos u saameeyeen si farxad leh oo dareen fiican leh in arrinkooda iyo noloshooda maalmood ay ku laabtaan maxaa yeelay waxa ogahay dad badan ee saameyn ku yeelatay marka qorshooyinkiina hore waxa u rajeynaa markasta qeyr iyo farxad inay idinku rumowdo riyooyinkooda marka waana maqasheen waxna waa akhrisin ardayda laakiin waxa jeclaa lahaa in arrinkaas dadku u saameeyay in maxaad lana kala war qaato oo marka arigaas leeyahay waxa waaye dadka qaar arrinta markay soo gaartay oo leer warqadaada dib lagu laabana waxay u arkeen waxay ku noqotay arrin dhaawac weyn u geystay dadka qaar sababtoo u geystana waxa waaye dadka qaar in sharciga lagala laabana la dhahay oo arkeen hadday guur rabeenna way joojiyeen hadday waxbarasho rabeen way joojiyeen dad badanaa shaqooyinkooda ka carreen oo dalal kale aadeen inkastoo gadaal dib ugu soo laabteen dadka wararkooda ahayn marka familiyaanka iyo nolosha u saameeyay arrinkaas oo barbareemka ku habooday dadka xataa waalidiinta qaar waxay ku fikireen inay dalka ka tagaan marka arrinkaas arrimaha oo saameynta ku yeesho dhan noloshiina in caadi hal iska dhigaa la dhigi jiray in nolosha caadigeeda la jaan qaadaan tan kale waxaa jiro maamul iyo maxay inaa kala war qaadano sidii hore oo maxay tahay iska yacdo maaha jaaliyadaha jiraan rag xog ogaalaha jiraan dad oo arrimahaas abukaatayaala leenahay in arrinkaas nala soo xiriiro oo jaaliyada lala soo xiriiro oo la yiraahdo sidee wax u jiraan ayna noqon war suuqa warqadda xataa warka ninna si u yiri ninna si u qaado in ninka ama kuwa aqoonta dhow waa laga soo gudwaayay la dhigi jiray yaa magaalada iga soo reekay qofka magaalada ka soo reeyay sometimes waxa suurtagal inuusan qualify ahayn ama arrinkaas oo san u dhunduleelin sababtana eragaas ku leeyahay waxa waaye ma eedeena dadka naga soo reeyay laakiin dadka naga soo reeyay sharciyadan dambaba maba dhageystaba macnaha dacdara ninka deeyaa dhibtaan ninka daruuftan haysato asaa sharciyada inta badan dhageysta ama dadka kufacda ah laakiin qof 40 sano jiro danihiisa kala holiisa kala kuma qaad hadaa tira maanta maxaa kala tashana dhibaato noqonay marka si dhibaato aysan ku saameynin waxa kala soo xiriiray ama dadka u dhunduleelo dadka mas'uuliyiinta ka ah waxa dhigi kartaa jaalida nala taliya waxaanan awoodin waxa idinku jeey karnaa waxa jiro xafiisyo abukaatayaal oo lacag la'aan waxa xaq u leedahay jirto oo dawladda ay ku ogashay in ogaatid ama in laga caawiyo marka haddaadan ogeenin ha ka cararin meel cilaa walaalo nala soo xiriir aanan macnaha tale iyo tusmaa ku siino dhammaanna waxa u jeedinaa isku xiraasho iyo maxay isdhageysiga iyo kala tala qaadashada reer Bergen muujiyeen waa ugu mahad celinaa waxaana leeyahay Allah mazidna wala tanqusna sidoo kale waxa u mahad celinaa garabka oo ay nasiyaan jaaliyada Bergen